والله بالله جايز قعمها كو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك تو ماي يوتيوب channel again. ولكن صاحبكم شعيب باك سوري صاحبي يال ميل با joogtaan maanta waxa jooga meel lagu magacaabo East Brew oo lagu magacaabo Ice Bridge ama buundada barafka. dhulkan aad arkaysaan xaggan waxa waaye waa webi aad iyo aad u weyn weeye oo ilaa iyo 250 mitir dhankaasi ah dhirkiisuna uu yahay 84 kilomitir ayuu yahay ka bilaabato dhanka ilaa iyo badda ku shubayo. laakiin maanta waxa sameey doonaa waxaan ku goy doonaa gaari ma ku lugay doono gaari ayaan ku goy doonaa sida meeshan aad ka arkaysaan. حقا سيدا كاركيسان وحالي يرادا ايس برو يعني نوشكا ايس برو يراها لكن سومالي هان وحاواي بوندا برفك ان مشرت waa widi bunda ma ahan oo yaani widi oo qabo dhagi waaye gawaarida markay dul maraan laakiin marka maraysid waxa lagu dhahay bo eegat ansvar adiga mas'uuliyadda iska leh hadii aad bundadan ku wadaysid mas'uuliyadda iska leh haduu gaarigaagu kula dego wibiga dhaxdiisa kugula dego mas'uuliyadda anaga kugu malihiin adaa isdhigtay ya soo joog ninkii laga waaya soo jiifa laga helaa marka mas'uuliyaddaada kuwad ayaa lagu dhahay gaari hadda ma shaqooyis hadii kala ma hano wada xaq lagu marsi amaan ah oo saaf ah ee walaalo wadadaas mar hadda inda adeegtay oo diiday sida shacab camaliyana widiga ta dhex firiista xataa kuma soo doonin adeeg ku taala marka meeshaan arnaa inaan gaariga dul marsiino xogaa barafku adag yahay ninka Andrey way adag yahay bogta wuxuu taagayaa meeshaan gaariga dul marsiinayna anigana waxaan dhahay okay taqdiimadiisa wasal dhimanayna marka laakiin meesha waxa ku qoran ilaa iyo hal tan ayaa culayskiisa mari karo laakiin yaa garanayo laga yaabo inuu wibigii hoos ka dhalaalay kulana digi karo marka arki doona sidee noqoto Soomaaliya. If I do, I'll think of you. The nights are so long, wondering if you miss me too. I'm losing myself in the city. Sounds for a while I'm fine, but as soon as it gets quiet, I know I'm screwed. Ooh, I can hear my own heart breaking. Do you hear the sound of my heart breaking over you? Ooh, I can hear my own heart breaking. meeshaan hadda aan joogno waxa waaye webi يعني آدي وين أو إلا 84 كيلومتر هويان آدي وين يهوديان لكن لما أنتي وقدوبي ما صوبت ماشي عنو إيمانين وحي هذا إن عن التسينو إن محل يجري جاري حتى لو دول ودي كرامركو برف كسائد سانو أديكو يعني قبل كان دجنا هاي وكقبو بدني هاي أنت كلام قبل الله يوروب يعني وكقبو بدني هاي marka dhulkana arkaysaan waxay sameyn jireen sanadii 1920 ilaa iyo 1930 ayay waxay kaga gudbi jireen baska iyo gaariga iyo waxay saari jireen doon arkaysaan doonta ayay kaga gudbi jireen wadada dhankeeda kaleeto yacni ma xilliga oo samarka doontaasi gaariga saaraan waxbay yani doontoosana ma aha waa wax hoos loo dhigo kadib wax ku gudbinaan gaariga kadib dhanka loo soo gudbi jiray wadada safeka hoo la maro markaas ma aysan jirin marka meesha maxaa ka baranaynaa cilmiga ka kordhisanayna muxuu yahay inaan imaano oo maxaa la jira dhulkan aan aragno dhulka horta dhul qabow badan number 1 number 2 waa dhul yacni webiyo iyo meelo biyo mareen u wada badan oo meelo biyo u wada badan iyo buuro sidaas ay tahayna waxay sameeyeen dhulka way dhiseen number 1 buundooyin ay saareen waxay sameeyeen jidaday habaysteen dhulkan iyo dhulkeeni haddii la isku barbar dhigo والله waxaanu ku kala jirnaa janno iyo cadaab period hatta wax kale ma loo dhahay janno iyo cadaab aan kala jirnaa hadii dhulkan iyo dhulkoodii loo kala fiiriyo sababtoo ah dhulkan banaanka inaad joogto naftu kuma siinayso ilaa guri kale ku jirtid ma ahane lagama yaabo maanta inaad banaanka inta joogto waqti ku qaadatid ku baashaashid ilaa 2 bilood haday ugu badato xil bisha 7 iyo bisha 6 ba ku baashaali kartaa oo yaani buuraha maraa kurtid xogaa cagaar-cagaarkooda qurxay laakiin inta ka soo harto waxa waaye qabow iyo waxa waaye roob iyo meel waxa waaye aan lagu noolaa kan runta marka laga hadlo sidaas ay tahay dhulkooda waxay ka dhigteen
dhulka ugu quruxda badan ama wadamada ugu horeeya caalamka ka dhigan taasina waa isku tashi iyo dadaal annagana dabaqaan dhisno gurigaan dhisno waa duminaynaa guys come on come on gacmaha igu wallahi bilaa guys gacmaha kow guys hadda sa arkaysaan meesha aan joogo waxa waaye bartamaha webiga weeyaan ma fahanteen so webigan xilliga winterka ah gawaarida waa la dul marsiiyaa khaasatan gawaarida ilaa iyo 1000 ka tan gaarayso ka badan lama marsiin karo sababta loo marsiinaana waxay tahay haddaa fiirisiin xaggan ayaa laga soo gelayaa meeshaan iga dambayso waxaana looga baxaa meeshaas so yacni adiga waxay qaadanaysaa ugu badnaan waxay qaadanaysaa 2 daqiiqo mise 1 daqiiqo bar in looga gudbo isaga dhanba looga gudbay qaadanaysaa kadib dadka degan meeshaas iyo dhankaas dhan degan waxaa waaye waqtiga u safgareysma marka waxaa jirto waddo dhankaas marto oo yacnaa dhankanay martaa xagganay ka baxdaa koray aadaa laakiin waddadaas waxay qaadanaysaa 45 daqiiqo ayay qaadanaysaa in la soo wareegto oo inta la yimaado xagganna waxaa waaye saan haddaad tiraahdo buundo lama marsiiyo yacnaa qarash badanaa ku baxaayo buundo wiga dalbadeen laakiin maadaama dadka jiinkiisa kala degan ay yihiin dad aad u yar waxaa la dhahay waanu ka xunnahay buundo ladayma saari karo codsigoodan ilaa hadda wuxuu ku jiraa safka ayuu ku jiraa marka waa kaasaa kilomitirkii xawaaraha lagu soco kara meeshaana waxaa waaye 30 kilomitir 20 ilaa 30 kilomitir ayaa lagu soco karaa saacaddii ma fahanteen marka xawaaro laguma ordi karo tartiib oo soconaysaa xilliga samarka marka la gaaro laakiin qasab ayay tahay dadku inay gebi ahaantoodba ay ku soo wareegaan waddada dheer tahay ay qaataan 45 daqiiqo ilaa 50 daqiiqo ay soo qaataan meel ay kaga gudbi lahaayeen 1 daqiiqo 2 daqiiqo ay kaga gudbi lahaayeen 45 daqiiqo uu maxalli jiro soo qaadanaya